soo dhawaada asxaabta. madaxweynayaasha caalamku waxay leeyihiin dad muxaafado oo ku raacsan siyaasadooda iyo fikirkooda, laakiin ma jiro qof boqolkiiba boqol la taageersan yahay. waxaa jira sidoo kale dad ku mucaarad ah. maanta waxaan idiin soo gudbin doonaa qaar ka mid a mucaaradka madaxweynayaasha, kuwaas oo isku dayay inay dilaan ama ay waxyeeleeyaan madaxweynayaasha. intaynaan u gudagelin, subscribe saar channelka Ogaal Cusub una sii share gala asxaabtaada. George W. Bush, mid ka mid ah wareysyadii uu bixiyay sanadkii 2008 ayaa waxa uu ku cabiray dareenkiisa ka dhanka ah go'aanka laga gaadhay dagaalka Ciraaq. hadalkaas oo kiciyay dareemaha mid ka mid ah saxafiyiintii joogtay goobta, kaas oo ka soo jeeday waddanka Ciraaq, wuxuuna dareemay inuu hoos u dhigay waddankiisa. waxaana lagu magacaabayay saxafiga Al-Yazidi, wuxuuna ku tuuray labadiisii kabood, laakiin umay suurtagelin inay ku dhacaan kabihii madaxweynaha. waana la xidhay ninkii, waxaana lagu xukumay 3 sano oo xadhiga, laakiin muu dhammaysan xabsigiisii oo waxaa la sii daayay markii uu xidhnaa 6 bilood. wuxuuna ku noqday waddanka Lubnaan si uu xaggaas ugu noolaado, waxaanuu ka mid noqday geesiyaasha Ciraaq maxaa yeelay ra'yigii dadka ayuu ku cabiray ficil. Donald Trump, intii lagu guda jiray diyaargarowgii musharaxnimo ee uu isugu soo sharaxay Donald Trump madaxweynenimada, ayaa wuxuu u qabtay khudbad shacabka oo dhan. intii uu ku guda jiray khudbadiisii ayaa waxa uu suurto gashay mid ka mid ah shacabkii inuu ka soo dilboodo biraha dadka haya, laakiin waa la qabtay ninkii intaanu gaadhin madaxweynihiina waxaa lagu qasbay inuu ka tago meesha si loo ilaaliyo amnigiisa. Francois Hollande wuxuu ahaa madaxweynaha Faransiiska laga soo bilaabo sanadkii 2012 ilaa 2017. markii ay dhacaysay dhacdadani, wuxuu ku jiray xaaladda musharaxnimo ee kursiga madaxweyne, laakiin may awoodin ilaaladiisu inay si fiican u ilaaliyaan, iyadoo ay soo dhaqaaqday gabadh ka mid ahayd dadkii dhagaysanayay khudbadiisa, kuna shubtay madaxweynihii bur ama daqiiq. intaas kadib ayay awoodeen ilaaladii inay qabtaan gabadhii, waxayna ku xidheen qolka dharka si loo xaqiijiyo waxay waday gabadhaasi iyo si loo marsiiyo sharciga. John Prescott wuxuu ahaa nin lagu yaqaano inuu isku dayo mar walba inuu tuso shacabka jacayl iyo inuu ku maro wadooyinka isaga oo bilaa ilaalo ah. maalin maalmaha ka mid ah ayuu u soo baxay suuqa isaga oo ayna la socon ilaalo adag, laakiin isaga oo marayo waddo la jaar ahayd gurigiisa ayaa wuxuu ku kadsoomay nin taagan waddada dhinaceeda oo ku soo tuuraya ukun. arrinkaas oo ka cadhaysiiyey Prescott, laakiin waxaa la yaab leh in arrinkii isku bedelay dagaal, wuxuuna bilaabay mid walba inuu la dagaalamo midka kale. waxaana si dhaqso ah ku soo gaadhay goobtii booliskii, iyadoo xaggii lagu xidhay ninkii. Vitaly Sulsky, siyaasigii Ukrainiyaanka ahaa, wuxuu kala kulmay siyaasigani mucaaradad aad u weyn shacabka Ukrainiya, fikirkiisa oo ayna dadka badankoodu aqbalin awgeed. maalin isaga oo ka soo baxay xafiiskiisa, waxaa ku sugayay albaabka xafiiskiisa dad badan oo mucaaradkiisa ahaa. manay la socon madaxweynaha ilaalo badan, waxayna isku dayeen dadkii inay waxyeeleeyaan, iyagoo ku dhex riday mid ka mid ah sanduuqyada qashinka. waxayna bilaabeen inay duleystaan kuna dhex garaacaan sanduuqa, laakiin waqti yar kadib ilaaladii ayaa awooday inay ka dhex saaraan dadka, isagoo ayna soo gaadhin dhibaato aad u weyn. Ahmed Degan, isaga oo ka jeedinaya kelmad meel, ayaa waxaa ka soo dhex baxay dadkii ka soo qaybgalayaasha ahaa nin xoog weyn oo ay gacantiisa ku jirto baaskoolad, isaga oo ku jeediyey baaskooladii madaxa Ahmed Degan. dadkii oo dhan waxay dareemeen inay soo dhammaatay noloshii siyaasigu, laakiin wax lala yaabo waxa noqotay in isku daygaasi uu noqday mid fashilmay. wuxuuna isku dayay ninkii mar labaad inuu cabeeyo baaskooladii, laakiin umay suurtagelin oo waxaa ka soo buuxsamay goobtii ilaalo iyo xogaga amniga. waxaana suurtagal noqotay in la qabto ninkaasi, xaggaasna lagu fashiliyo isku daygaasi dilka ah. intaasi ayaan idiin soo gudbinay maanta daawadayaal. haddii aad ku cusub tahay channelka Ogaal Cusub, subscribe saar una sii share gala asxaabtaada. waad mahadsan tahay.